السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hoyga dhiirana English Learning Furnace qaybtiisa YouTube-ga. halkaas oo aad ka barataan barnaamijyada kala duwan sida conversational practice, wada sheekaysi, mawduucyo iyo barnaamijyo kala duwan aan daily usoo dhignay bartayna YouTube-ga. haddaba subscribe noo sar haddaad nagu cusub tahay, haddaa hore noogu saarnay qalbi kaa ogsoonay allah ku sharfo. insha allah maanta waxaynu ku hadli doonaa topic aad iyo aad u masiira isla markaana qofka muslimka waajib ku noqonaya inuu fiideogan like gareeyo isla markaana uu share gareeyo si uu gaaro fiideogani dad badan oo aad iyo aad u daneynaya. maanta waxaan doonayaa inaan ka aargoosano dadka la idhaahdo migransa Israa'iil inaka uga faa'iidaysanayna mawduucan aynu ku jirno. marka haddii aad daawanayso waxaa waajib kugu noqonayna like iyo share garayso haddii uu dhig muslim kugu jiro. waayahay Palestine and Jewish, Palestine iyo Yahuuda, Palestine and Jewish, Palestine iyo Yahuuda. The bitter war dagaalka qadhaadh, the bitter war dagaalka qadhaadh, the bitter war dagaalka qadhaadh between u dhaxeeya Palestine and Israel developed wuxuu daha korogay developed wuxuu daha korogay developed wuxuu daha korogay various fictions khuraafaad badan developed wuxuu daha korogay various fictions khuraafaad badan various fictions khuraafaad badan various fictions khuraafaad badan and propaganda iyo dacaayado and propaganda iyo dacaayado that have been dominating taasoo lagu shiiqin jiray that have been dominating taasoo lagu shiiqin jiray that have been dominating taasoo lagu shiiqin jiray Muslims people dadka muslimiinta that have been dominating taasoo lagu shiiqin jiray Muslims people dadka muslimiinta by ay ku shiiqin jireen paganism dadka gaaladu paganism dadka gaaladu ahaadan Jewish Yahuud Christian amba dadka gaaladu in the newspapers jaraa'idada in newspapers jaraa'idada and magazine iyo magransa wargeysyada and magazine iyo wargeysyada and magazine iyo wargeysyada. yani wuxuu ku leeyahay the bitter war dagaalka qadhaadh, the bitter war dagaalka qadhaadh between u dhaxeeya Palestine and Israel Palestine and Israel developed wuxuu daha korogay various fictions khuraafaad badan various fictions khuraafaad badan and propaganda iyo dacaayado that have been dominating taasoo lagu shiiqin jiray that have been dominating taasoo lagu shiiqin jiray that have been dominating taasoo lagu shiiqin jiray Muslims people dadka muslimiinta Muslims people dadka muslimiinta by ay ku shiiqin jireen paganism gaaladu in newspapers jaraa'idadooda in newspapers jaraa'idada in newspapers jaraa'idada and magazine iyo joornaalada and magazine iyo joornaalada. yani wuxuu ku leeyahay dagaalka qadhaadh ee u dhaxeeya Palestine iyo Israel wuxuu daha korogay khuraafaad badan iyo dacaayado taasoo lagu shiiqin jiray maganaasa dadka muslimiinta. yani tusaale ahaan in la yiraahdo dadka muslimiintu waa dad burcadbadeed ah, dadka muslimiintu dadkay dilaan, dadka muslimiintu waa dad maganaasa cadow ku ah maganaasa humankind-ka bini'aadanka waxyaalo sidaas oo kale. as we realize saynu ognahay everyone among us qof kastoo inaga naga mid ihi everyone among us qof kastoo inaga naga mid ihi knows well uu si fiican u ogyahay what's happening in Gaza waxa ka dhacaya Gaza what is happening in Gaza waxa ka dhacaya Gaza and Rafa iyo Rafa. yani wuxuu ku leeyahay as we realize saynu u ognahay everyone among us in qof kastoo inaga mid ihi everyone among us qof kastoo inaga mid ihi knows well uu si fiican u ogyahay sidoo kale wuxuu ogyahay buu ku leeyahay what is happening waxa ka dhacaya in Gaza what is happening in Gaza waxa ka dhacaya Gaza and Rafa. yani waxaynu ognahay waxa ka dhacaya maanta Gaza iyo Rafa in ay Yahuudi ay duqeynayso aan hooyiyo magransa caruur iyo waayeel aanay tixgelinin oo meeshii kaamka ahayd in magransa markii hore waxa lagu Gaza ee koonfurteeda way u guureen waa tii lagaga debay imid
xalkii safe tahayd haddana waati lagu yidhi waxaad u guurta haddana rafa halkaasaa safe ooda aan la duqeynayne haddana waa kuwa usoo guuray waa kuwa iminka magaranaysa haddana yuhuudi naclatullaahi ilayhi ilaahay naclad ha ku rideeyey waa kuwa maanta duqeeyey meeshaas waayahay aan kusii socdo how it seems to you sidee kula muuqataa how it seems to you sidee kula muuqataa if you meet everyday coming haddii aad la kulmayso maalin kastoo timaada if you meet everyday coming haddii aad la kulmayso maalin kastoo timaada with constant persecution cadaadis joogtaa with constant persecution cadaadis joogtaa with constant persecution cadaadis joogtaa constant waa joogtadii persecution waa cadaadis yani cadaadis qofku ugu haya tusaale ahaan weeyaan with constant persecution cadaadis joogtaa an unmarvelous torture tirdil aan caadi ahayn 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 unmarvelous waa wax aan caadi ahayn unmarvelous waa wax aan caadi ahayn torturena waa tirdil an execution iyo magaranaysa dilitaan balka hore wuxuu ku leeyahay haddii aad maalin walba aad la kulmayso cadaadis joogta magaranaysa tirdil aan caadi ahayn iyo dilitaan يعني dhulkaaga hooyo dhulkaagii aad magaranaysa aad ku dhalatay dhulkaagii haddii qof ajaanibi kugu dilay ka hor xaalkaaga siduu noqon lahaa sidee baad magaranaysa aad ugu falcelin lahayd buu ku leeyahay waa su'aal uu ku weydiinayo yani waa su'aal meesha masiiri oo meesha taala waayahay where are the agencies main hay'adihii where are agencies main hay'adihii where are the agencies main hay'adihii woo ka shaqaynayay daryeelka aadanaha where are the agencies main hay'adihii where are the agencies main hay'adihii woo ka shaqaynayay humanki where is the UNO meda United Nations kii where is the UNO meda United Nations kii which kaasoo saying idhaahda there is a humanitarian aid waxaa jira gargaar bini'aadantinimo there is a humanitarian aid waxaa jira xuquuq bini'aadantinimo there is a humanitarian aid waxaa jira xuquuq bini'aadantinimo waad naqasheen in badan dad badan oo lagu duufsanayo waxa la ilaalinayaa xuquuqitaanka bini'aadanka maxay u arki waayeen buu kuleeyahay waxa gaza iyo rafa ka dhacaya ay yuhuuddu ay magaranaysa ay ku burburinayso hantida iyo shacabka iyo maatida magaranaysa aan waxba geysan Falastiin wuxuu kuleeyahay meeday where is the UNO meda United Nations kii which kaasoo saying in idhaahda there is humanitarian aid waxaa jira magaranaysa bini'aadantinimo xuquuq bini'aadanimo jira waayahay where is the ICJ meeday maxkamadii magaranaysa cadaaladda ahayd ee adduunku meeday which taasoo was saying oran jirtay that there is the justice inay jirto cadaalad that there is the justice inay jirto cadaalad where is the ICJ meeday maxkamadii caalamiga ahayd which taasoo was saying oran jirtay that there is justice waxa jira cadaalad aan u sameynayna international court justice baa jiro cadaalad waxa jirta maxkamadda adduunka ee Hague baa jirta maxay u arki leedahay dhibaatada ka dhacaysa Gaza iyo Rafa yuhuudda ay ku hayso Falastiin so sidaa daraadeed bester qarcow let reconcile isku keen waafaji let reconcile isku keen waafaji what do you mean this maxaa waxaan uga jeedo yani qarac waxa looga jeedaa gaalow waxaan isku keen waafaji ya dahdabadiisaad ka hadlaysaa way so bester qarcow let reconcile isku keen waafaji what do you mean this waxaan waxaad uga jeedo inaad tiraahdo mar magaranaysa waxa jira hay'ado magaranaysa xuquuq ilaalinaya daryeelka bini'aadanka meeday maxay gasay uga qaban weyday iyo magaranaysa Israa'iil yuhuud maxay uga qaban weyday meeday UNO meeday ICC maxay maxkamadda adduunka meeday waxaasoo dhan meeday baa lagu leeyahay haddaba soo sidaa daraadeed bester qarcow let reconcile isku keen waafaji what do you mean this waxaan waxa uga jeedo waayahay what do you mean waxaan waxa uga jeedo waayahay at least ugu yaraan over 37,000 people were killed yani 37,000 oo qof oo dada were killed waa la dilay include ay ka mid yihiin the children carruurtu include ay ka mid yihiin children carruurtu women dumarku an innocent people iyo dadka aan waxba geysan an innocent people dadka bilaa dambiga ee waxba geysan like waa sidoo kale it has flattened waxa dhulka la simay
it has flattened waxa dhulka la samay more buildings dhismayaal badan more buildings dhismayaal badan more buildings dhismayaal badan and floors iyo dabaqyo and floors iyo dabaqyo and floors dabaqyo as Jazeera News sida wararkan Al Jazeera mentioning ay ku xustay Al Jazeera sida wararka Al Jazeera mentioning ay ku xustay on its website-keeda on Google leedahay Googlaha on Google ay Googlaha ku leedahay finally and above all guniga gunaanadkii finally and above all guniga gunaanadkii don't permit how oglaan anyone qofna to control you inuu ka maamulo you ba xaga ka maqan to control you inuu ka maamulo behind the curtain dabadiisa inuu adiga ka maamulo ha u ogolaan yani micnaheedu waxa weeyaan in magaraanaysa haddana in weji lagu tuso oo habek right yani la wajiile lagula imaado sida magaraanaysa iminka gaaladan ay noola iimeen muslimiinta ula yimaadeen ay wax ku marjin habaabiyaan waxba jira ay dhaahdaan hadhoona aanay wixii ba jirin marka wuxuu ku leeyahay adu waxa ku tiirsanaan waxba yahay wax ku tiirsanaan waxba don't permit how ogla anyone qofna to control you inuu ka maamulo behind the curtain dabadiisa waayahay maalin walba waxaan soo gelin doonaa wararka adduunka ka dhacaya ee xasaasiga ee muslimiinta iyo magaraansa iyo waxaanu soo qaadan doonaa qodbadaha kala duwan ee madaxweynayaasha caalamka iyo inakoo kala baxayna magaraansa kelmadaha iyo magaraansa sida magaraansa luqada ay ugu hadlayaan iyo sida magaraansa ay grammatic ahaan ay magaraansa u soo hadlayaan insha Allah waxaanu rajaynaynaa videoga ka xiga inaynu iskugu iman doono hanaga ilowina subscribe ta iyo like ta noo badiso videogan u gaaro hada ogsoono videogani waa hadii aad like iyo share samayso waa in badan aad ajar aad qaadanayso maadaama aynu ka shaqeynayno dana muslimiinaaneed iyo Falastiin aynu garabkeena taaganahay waxaan leenahay nagasti insha Allah waynoo nagasti way mahadsanidin